بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa su'aalo la isoo weydiiyay oo ah saliidaha u fiican in cuntada lagu karsado. Maadaama aan waxyaabo badan oo cuntooyinka iyo waxyaabaha lagu sameeysta aan ka hadlay, dada igu yiraahdeen markii noo soo sheeg saliidaha fiican ah cuntada ku sameysan karno nala soo sheer garay. marka aniga maanta waxaan idiin soo diyaariyay dhowr saliidood oo aan isticmaalo gurigeyga ku isticmaalo cuntada aan ku karsado. marka waa kuwana saliidihii iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin waa idin yara taaban doonaa. saliida number 1 ugu fiican waa avocado oil. avocado oil ka marka saa u jeedaanba ma aha organic laakiin waa GMO free ah ku qoran. marka sidaasaan usoo iibsaday GMO free. dhaladan waa kilo, waa hal liter ku jira, lacagteedana waa macquul. ta organiga waa yara qaali, marka waa GMO free weeyaan. avocado oil kan waxaan ka hadlaynaa faa'iido badan ee caafimaadka u leedahay. dufan fiican oo faa'iido laha ku jira. maqaarkay u fiican tahay xitaa haddii wajiga la marsado. arthritis-kay u fiican tahay. cholesterol ma laha. marka dabka la saaro waxay saliidaha kale oo dhan uga fiican tahay. marka dabka la saaro dabka way u adkeysan kartaa. waxay yiraahdaan waxay leedahay high smoke point wax la yiraahdo. marka dabka la saaro ma gubato. saliidahan kale laga dayriyay hadda waxa looga dayriyay waxa weeyaan marka dabka saliida la saaro dabka uma adkeysan karaan. markay kululaadaan temperature-kooda uu high noqdo, saliidii marka qiiq iyo chemical sii daynaysaa, marka way sumoobaysaa. suntaasna caafimaadka uma fiicna. marka avocado oil ka waxa saliidaha ay uga fiican tahay horta marka laga soo tago waxyaabaha ay ka samaysan tahay caafimaadka u leh jidhka bini'aadanka, dabkana way u adkeysan kartaa. smoke point-keeda sareeya. marka saasay uga fiican tahay saliidaha kale. saliida xigta maxay too avocado-da kusoo xigta waxa weeyaan waa coconut oil-ka. coconut oil-ka iyadana wax yar qaali tahay. markay organic tay fiican tahay iyadana cuntada waa lagu karsan karaa. smoke point-keeda waa fiican oo dabka iyadana wuu adkeysan kartaa. waxyaabo badan oo maxay too health benefits badanna way leedahay caafimaadka u fiican. saliida kusoo xigto waxa weeyaan waa olive oil-ka. olive oil-ka marka waa labo. extra virgin olive oil iyo normal olive oil. extra virgin olive oil-ka marka dabka looguma talagelin, wax looguma karsado, cuntooyinka lagu darsadaa. wixii cunto aad korka kaga dardarsanaysid sidoo kale loogu talagalay. karis ma aha taas, laakiin normal olive oil oo organic ah hadaad haysatid kariska way geli kartaa. laakiin aad ha u kulaylinin sideedaba. marka cunto aan karinayna anaga Soomaaliya waa xasuustaa cuntada saliida marka dabka la saaray saliida kululaato almost qiiq sii dayso basasha lagu shubi jiray. marka sideedaba caadadaas caado khaldanay ahayd. saliida inay qiiqda iyo inay kulayl badan noqoto labadaba khatar ku jirta caafimaad. saliida waa in aad dabka markaa saartid markiiba waxa ku shubaysidna aad ku shubtaa. marka in la kulayliyo aad loo kulayliyo looguma talagelin. marka maxay too olive oil-kana waa saas ta caadiga ah cuntada lagu karsadaa, ta kalena dusha looga darsadaa. saliida kale ee aniga aan isticmaalo oo cunto kariska aan u isticmaalo waa rapeseed oil oo organic ah. rapeseed oil-kaasna waa vitamin E na waa leedahay. dabkana wuu adkeysan kartaa, faa'iidooyin badan ay leedahay. marka saliidahaas oo dhan guriga waa ku xaadir, laakiin waa kala doortaa iyo sidaan u isticmaalayo iyo waxyaabaha aan ku isticmaalayo. maxaa yeelay saliido qaaliya ku jira. avocado oil-ka oo kale waa qaali. coconut oil-ka oo kale waa qaali. marka waa xushaa. teeda kale waxaan idinkula talinayaa saliida annaka Soomaalida waxaan caan ku nahay inaan markaan dhari karinayna aan hal bakeeri oo saliida ku shubno. taasna uma baahnid, muhiim ma aha. saliida si yar aad u isticmaali kartaa, inkastay qaali tahay waa dhaqaalaysan kartaa. maxaa yeelay uma baahnid inaad saliid badan digsiga ku shubtid oo saxanka ay ku hadho oo hadhow digsiga ku hadho. uma baahnid. saliida marka horeba saxanka iyo digsigaba maxaa ay uga haraysaa saliid yar cuntada ku samayso. also waxaad cuntada ku samaysan kartaa haddaad Afrika joogtid oo aad u fiican oo aad heli kartid butter. butterkii xoolaha
Soomaali waayo aan ka hadlayaa ma ka hadlayo waxaan beenbeenta dukaamada yaale butter lagu soo qoray kama hadlayay real butter oo xoolo ka yimid subag xoolaad haddaad haysatid cuntada waa lagu karsan karaa waa fiican yahay isagana aad iyo aad u fiican yahay marka waxyaabaan aniga isku mix and match ala dhahaa waxbaan isku dardaraa for example hadda markaan mala wax dubayo kale butteraan isticmaalaa saliid uma isticmaali marka waxyaabaha waa inaad kala xulxulataa waxyaabaha aad butterka u isticmaalaysid waxyaabaha aad maxay tahay ukunto kale marka aan ka samaysanayo ukunto kale butteraan ku darsadaa ama maxaa la dhahay coconut oil marka waa inaad alaabtan haysatid laakiin wax kasta waxaa ku isticmaalaysid adiga aad go-aan ka gaartid for example hadda coconut oil oo kale ciyaalkayga ma ogola inaan mala waxa ugu sameeyo butterkan ugu sameeyaa laakiin haddii ciyaalkaaga ogol yihiin coconut oilka inaan mala waxa ku dubatid waa ku duban kartaa avocado oilka oo kale ama maxay ahayd to rapeseed oilka waxaan ka samaystaa marmar avocadada markasta ma aha mayonnaise homemade mayonnaise markaan samaysanayo marmar waa isticmaalaa avocado oil sida badan laakiin rapeseed oil maxaa yeelay waa organic dabna ma gelayso saliidda markay dabka gashay khatarta badan tahay maadaama aanay dabna gelaynin markaan mayonnaise samaynayo rapeseed oilkayga isticmaala marka adiga waa inaad taqaanaa waxaaga saa u basarsanaysid laakiin guud ahaan saliidaha aan isticmaalo waa kuwaas waa inay organic yihiin waana inaadan markaa xitaa iyagoo organigaas oo saliidahaas fiican oo qaaliga ah marka aad dabka saartid aadan karkarinin dabka saar horay kaga shub waxaa kaga shubaysid si yarna u isticmaal ha iska badbadinin waxaan qiyaasayaa marka inaan dadkii su-aalaha saliidda isoo weydiiyay u jawaabay videogan haddaad ka faa'iidaysatay ama aad jeclaysatay thumbs up subscribe garay la share garay inta aad jeceshahay wassalaamu calaykum waraxmatullah